munaasabada lagu daafurayay garoonka diyaaradaha General Maxamed Abshir Muuse Hamaan waxay maanta si rasmi uga qabsoontay gudaha garoonka ee magaalada Garowe iyadoo mas'uuliyiinta Puntland ay xafladan soo qaban qaabiyay ay gabigoodba ka qayb galeen madax ka tirsan dawladda federaalka ee madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo horkacayo ayaa iyaguna qayb ka ahaa xubnaha ka qayb galay xafladan maanta lagu qabtay garoonka diyaaradaha General Maxamed Abshir Muuse ee magaalada Garowe waxaan soo dhaweynayaa dawladda federaalka iyo martiyaha kale oo wadanka ka yimid idinkana waxaan leeyahay soo dhawaada Puntland ku soo dhawaada aeroboortka furitaankiisa ku soo dhawaada nabad iyo caano iyo farxad ku soo dhawaada ayaan idin leeyahay garoonkan waxaa bilaawday dawladda Cabdullaahi Yuusuf 2003 anigoo wasiirka ka ahaa aniga goobtan sahamiyay aniga injineer Akimoon oo kamid ahaa ikaaw keenay halka isaga cabiray waxay nagu qaadatay inuu dhisno 7 sano anigoo wasiiraan bilaabay anigoo madaxweynaha Puntland noqday 2010 dhameeyay madaxweynaha Puntland Cabdullaahi Maxamed Cali Gaas oo ka hadlayay furitaanka garoonka diyaaradaha General Maxamed Abshir Muuse Hamaan waxa uu sheegay in dhismaha garoonkan uu soo maray wajiyo kala duwan taasi oo ku timid isku tashi ay sameeyeen shacabka ku dhaqan deegaanada Puntland isla markaana lagu gaari doono yoolal badan oo Puntland ay doonayso inay gaarto waxaan rabnaa marka madaxweyne waxa ugu dambeeyay oo ku hirgalay isku tashigaasi waxa weeye aeroboortka Garowe ee maanta adigu aad dah furtay waxaan aaminsanahay wax badan oo ka sii tiro badanna ama ha noqdaan dekado ama ha noqdaan jidad ama ha noqdaan kaabayaasha kale ee dhaqaalahana waanu qabsanaynaa waana ay noo socdaan hadda laftigeeda oo in badan oo kaabayaal dhaqaalo wadooyin leh oo dekado leh ayaa noo socda oo dhammaantoodna ku imaanaysa isku tashigeennii madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo oo kamid ahaa xubnaha mas'uuliyiinta iyagu ka qayb galayay xafladan lagu daafurayay garoonka diyaaradaha General Maxamed Abshir Muuse Hamaan ayaa goobta khudbad ka jeediyay waxaana uu ka waramay ahmiyadda ay dawladda federaalka Soomaaliya ay ka leedahay in la horumariyo garoomada diyaaradaha ee ku yaala magaalooyinka dalka Soomaaliya oo loo suurtageliyay inaan kulligeen marxaati ka wada ahano daafurka aan maanta ku furayno garoonkan Garowe ee aan loogu magac daray General Maxamed Abshir Muuse Allah u naxariisto waxaan u mahadcelinayaa dawladda Puntland ugu horeeyay madaxweynaha mar kale iyo shacabkeeda guud ahaan sida sharafta leh ee noo soo dhaweeyeen oo wanaagsan oo diiran waxay runtii soo xasuusisay Febraayo 8 markii meel walba laga banaan baxay oo laga taageeray dawladda cusub oo hadda ku dhow hal sano runtii waxay ii muujisay shacabka Soomaaliyeed wali inay u hamuun qabaan ama ay taageersan yihiin dawladdan halka sano aan jirsan wali waa ku mahadsan yihiin reer Puntland aad iyo aad baan kaga mahadcelinayaa soo dhaweynta keeray taas waxay muujinaysaa shacabka Soomaaliyeed meel kasta ay joogaanba inay sameeyeen yihiin dawlad jacayl xafladan sida rasmiga xariga looga jaray garoonka diyaaradaha Garowe International Airport ee magaalada Garowe ayaa ku soo beegmaysa iyadoo Puntland ay waday qabanqaabadii ugu aadaneyd ee ku saabsan in la qabto xaflad noocan oo kala ah oo xariga si rasmi ah looga jarayo garoonka diyaaradaha Garowe International Airport ee magaalada Garowe waxaana xafladan ka soo qayb gashay madaxda ugu sarreysa dalka Soomaaliya iyo mas'uuliyiin ka tirsan dawladaha dariska ah dalka Soomaaliya Umar Maxamed Somane Universal TV Garowe Me and my city, Mohammed Tariq, smoke fosh. Dhammaan reer Sweden. Taageeraygu badan Sweden ay joogaan. Tariq wadanta joogaan. Waa isku darsadaan. Abu Seyrabta.